gudaha Kenya ciidan ka abaabuli kara oo ku wajahan Axmed Madoobi iyo ninka meesha la yiraahdo Kismaayo ku wajahan mucaarad ku ah ma jiro hajira meesha waxaan ka soo marnayna waan ognahay muddo dheer bay nagu qaadatay ninka wax oo Ilaahay isaga ku guuleeyay buu qabtay adduunkana dawlad waa loo kala dambeeyaa in intii wax la mucaarado lagu dumiyo horay baan u soo marnay oo la eedo wax mucaarado lagu duminayo ma jiro ninkii tartan la galaya oo tartan la garab istaagaya oo wood kaga qaadaya hay al falaax iyo waqtigeeda weey laakiin wax la yiraahdo xabad iyo hujuun iyo dagaal lagaga qaado meesha anagu aan joogno marna ma dhacayso meel kale oo lagaga soo qaadayna ma ogolaanayno meeshaas taariikh fog bay leedahay Jubbaland maalinkii Unisom timid علي سكر بيويديسي بيتي علي سكر dadkiisi maalinkii waxa weeye ay baar dheer tageena oo as qorana dadkiisi bay tiri ninka xubin adigu aad leedahay haysta xubintii ku hadhayna ku qamaamaya ninkaas waxaan leenahay daris baan nahay nabad aan ahaano nabadgelyo aan ku wada joogno hadaad nabadgelyada ku joogo weydood col rabtana col dhibaatadiisa aan wali ku soo marin col dhibkiisa waad arki doontaa annagu waxaan kuugu baaqaynaa nabad darisnimo wada jir meesha waxa weeye amni baan u rabnaa dadka aytamaya Itoobiya ka imaaday oo ma wadanka ma laho oo waxyaabaha saas aan meediyaha kama maqlayno warka waxa weeye war aan ku faraxsanahay ma aha waxa weeye nabad baan ku joognaaye nabad inoo daaya haddii nabad la waayo waqtigeeda la is arki doonaa Jubbaland waxa weeye waxaan u rabnaa nabad Jubbaland waxaan u rabnaa deganaansho Jubbaland waxaan u rabnaa waqtigeeda inay gaadho Jubbaland waxaan u rabnaa dadkeeda inuu daris ahaado arinta Jubbaland intaas aan kaga bixi waxaan u soo gali gudaha Kenya dawlad aan ku dhaxnoolahay weeye Kenya waa soo dhawaynaynaa waan taageersanahay nabadeedaan taageersanahay madaxweynaha maanta jira ayaan taageersanahay wafti hadduu noogu yimaadana si mugla baan u soo dhawaynaynaa oo caruurtaanadii baa ku nool kuwii ku dhashay baa ku guursaday meesha waxaan rabnaa nabadgelyo inay ahaato burbur uma rabno dadka iyada lafteeda inay burburiyaan rabowna waxaan leenahay ka fiirsada ayaan leenahay aniga hadalkayga ma badinayo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi Jubbaland kol hore waxaan ku yiri berigay nimanka ka imaaday mooryaanta ee ka imaaday gobolada dhexe iyo ka xagga Jubbaland markii la qabsanayo magaalada Kismaayo waxaan sheegay gobol Kenya kamid ah oo magaalada Gaarisa qayb kamid ah inay tahay dadkii lahaana wuu imaqli meeluu joogabo xuduudka Jubbaland waxa laga soo bilaabaa 8 kilomitir oo magaalada baar dheer xagga ka meesha sarin leeyahay inta ka sokayso yaa Jubbaland leh nimanka guuxa hayo ee ka imaaday Garbaharre iyo Buurdhuubi iyo Luuq ka imaadayo haddaan nala xiriir nala darsaysaan walaal baan soo dhawaada waqti naloo taliyana waan soo dhaafnay haddaan nahay beesha kuumada wax badan baa lagu guuray wax badan baa leeyahay waa Soomaali wax badan baan daarood sheegnay maanta kuumadana hal la ogaado Jubbaland waan joognaa nin kale uma ogolin laakiin ninkii lagu dhoolaan rabo waa deegaan fiican badweynta Indian Ocean baa ku taala Itoobiya xuduud la leedahay waxay xuduud la leedahay wadanka Kenya badda casayd bay ku taala wabiga Jubba meesha ka soo daada weey waa meel adduunka muhiim ah ninkii lagu noolaan hayo waan ku soo dhaweeynaynaa ninkii inuu nagu xukumo rabo way dhamaatay waqti la xukumahay Jubbaland waa gobol anaga mid ah nabadgelyadiisa aan ku dadaalaynaa xoog iyo xoolana waxa lagu wuxuu nabad ku ahaan lahaa waan isticmaalaynaa hal la ogaado in yar baan ku dar on maantana ka hadlo waxaan rabaa Soomaali iyo reerkan aan walaalaha nahay daaroodan u horeyn reerkan aan walaalaha nahay daarood Ismaaciil aan isfahanno aan isbaranno isma naqaan aan isku baranaynaa laan dheerihiinni baan nahay aqoon-yahankiinni baan nahay dhaqaalayahankiinni baan nahay tayadiinni baan
reer Soomaali ah oo geeska Afrika degan oo mag boqola iska bixin kara oo meel degan oo ceel iyo sumad la oo la yaqaan oo naan annagu deris iyo ood wadaag ahayn haddaan nahay kuumada ma jiro ciisaha u shisheeya iyo gaaljecelka raas kambooni jooga inta u dhaxaysa kolkii ilaahay tiisi intay soo martay oo madaxweynaha Soomaaliya aad iyo kun jeer buu mahadsan yahay oo ra'iisul wasaarana siiyay kuwan xunxunkee qaa'imada youtuberada iyo meelaha ka hadlahayo kulligoodba oo madaxweyne dani u weyn yahay kulligood afkay furteen marka hore hambalyo aan idinku hambalyoyna waxaad ka cabaadaysaan fiino maxaad ka qaylibaale waxaan ka qayliyo buu gudcurka iyo roobabka iskalaan ka qayliyo waxaad ka cabaadaysaan ee tirada iyo tayada iyo aqoonta isa saarana dhab waay meeshaasaan u tagnay madaxweynaha Soomaaliya one man one vote markay gaadhana insha Allah annaga ahaan doon wixii Soomaaliya aan qayb u yeelana haddaan daarood Ismaaciil annaga u taagan wixii maanta laga bilaabo intaas qaata ra'iisul wasaaruhu xaq weeye shaqooyinkii loo idmadayna wuu hayaa qaylada iyo propagandada iyo si xun u fikirka hal laga daayo cod dheer baan saa ku leh madaxweynaha Soomaaliya waxaan leeyahay waad mahadsanta waxaad ku jirtaan dagaal argagixisaad la diriraysaan waddanka Soomaaliya la degtay nin allaala ninkii idan mucaarada hadduu baarlamaan yahay iyo hadduu siyaasi yahay iyo hadduu madaxweyne goboleed yahay inta ka dhaxle waa nin al-shabaab la shaqaynhayo Soomaaliya inay intaa fahantaan rabaa daaroodna waxaan rabaa inuu fahmo tiradii iyo tayadii iyo wixii baan isku darsan awal hore waxaan col la ahaan jiroon isaynay dawladaha dariska sidii Itoobiya iyo Kenya aan ka hadlayno waxaasaad noogu soo gaban jirteen kuwii waxaad ogaataan heshiis baan la galay walaalaan la naay isku siyaasad baan naay isku danbaan fahmaynta annaga dhaxdaanaduna col baan ahaan jiray waan heshiinay waxaan intaasoo heshiisa u qaadanoon u soo qaadan inaan xukunno Soomaaliya tiradii iyo tayadii iyo aqoontiina waan leeyahay soo dhawaada marka sidaa raalli ku aadan nugulana shaqeey daarood waan la shaqayn jiray intii dawladda siyaad barre ay burburtay saddex ra'iisul wasaare harti qaatay waan la shaqaynay si dadnimo leh nimankan la dhaho mareexana saddex ra'iisul wasaare madaxweyne qaatay waan la shaqaynay hartina saddex ra'iisul wasaare madaxweyne qaatay waan la shaqaynay warna la shaqeeyo wariya dadna la shaqayn weydaan qoqobka aad saarantii mancuun qabatay idinku saaray xaqiiqadu saawa